muuqaalkan waxaan ku falanqayn doonaa laacibka kubadda kolayga ee maanta magaciisu uu qabsaday caalamka Tyler Christopher Hero. Tyler Christopher Hero waa 20 sano jir kaasoo ciyaara kubadda kolayga ee dalka Mareykanka, waxaana uu maanta magaciisu qabsaday wargeysyada caalamka. waxaan muuqaalkan ku falanqayn doonaa sababta xidiga u ciyaara kooxda Miami Heat ee kubadda kolayga uu maanta magaciisu caalamka u haysto. National Basketball Association waxaa loo garan og yahay NBA, waa horyaalka rasmiga ah ee kubadda kolayga ama kubadda laliska ee dalka Mareykanka. sidoo kale waxaa ciyaara kooxo ka tirsan dalka Canada. 30 koox ayaa ku tartama horyaalkan, waxaana haatan difaacanaysa horyaalka kooxda la yiraahdo Toronto Raptors oo reer Canada ah. waxa ay soo saaraan kooxahaasi ama haystaan ciyaartooy magac ku leh kubadda kolayga caalamkana si aad ah looga garan og yahay. balse ciyaaryahan walba maalin ayuu magaciisu soo shacbaxaa ama hal game ayuu magaciisu ku soo shacbaxaa. dadka kubadda cagta daawada aad ay u garanayaan. tusaalena waxaan ugu soo qaadanayaa Gareth Bale. Gareth Bale ayaa habeen cajiib ah ku qaatay garoonka San Siro ee kooxda kubadda cagta Inter Milan iyo AC Milan ay ku ciyaaraan ciyaar kooxda Ingiriiska ah ee Tottenham ay wajahayso kooxda Inter Milan, markaasoo 10 ciyaartooy oo Tottenham ah ay Inter uga adkaatay 4-3. Bale kulankaas waxa uu dhaliyay 3 gool ama hat-trick, waxaana xusid mudan inuu cardaadiiqda ka dhigay difaacii dunida xilligaas haysta dhanka midig Douglas Maicon oo reer Brazil ah. haddaba sidaas oo kale waxaa sameeyay wiilka la yiraahdo Tyler Hero, waxaana xusid mudan inuu sameeyay rikoor cajiib ah oo nuucan u dhigan 37 dhibcood, 6 ku celis ama rebound, 3 caawin, waxaana sidaas kooxdiisa Miami Heat ay ku garaacday kooxda kubadda laliska ee Boston Celtics oo la timid 109 dhibcood. Miami Heatna waxa ay la timid 112 dhibcood. dadka xiiseeya kubadda cagta haddii aan si sahal ah u fahamsiiyo, kooxda Miami Heat ayaa 3 gool iyo 1 gool ku garaacday naadiga la yiraahdo Bolton Celtics, sidaas ayayna uga gudubtay ciyaaraha Eastern Conference Finals. haddaba Hero muxuu sameeyay kulankan rikoorkiisa cajiibka ahaa ayaan taxliil ku sameyn doonaa. wiilkaanina waa 20 sano jir, caalamka uu maanta magaciisu haysto. taxliisha waxaan ku bilaabaynaa sida tan. marka laga hadlayo ciyaaraha Conference Finalka taariikhda NBA-da, Hero waxa uu noqday wiilkii ugu yaraa ee dhibcaha ugu badan hal kulan ka keenay, 37 dhibcood ayuuna keenay. Andrew Toney ayaana kaalinta labaad ku haysta oo waxa uu keenay Andrew Toney 1981 35 dhibcood hal kulan. sidoo kale Hero wuxuu noqday 20 jirkii labaad ee dhibcaha ugu badan hal kulan ka keenay play-offka NBA-da taariikhdiisa. marka laga hadlayo Magic Johnson ayaana 42 dhibcood 80kii hal kulan oo kaliya ka keenay, sidaas ayuuna ninka la yiraahdo Magic Johnson uga hogaaminaya wiilka lagu magacaabay Hero. Hero xitaa wuxuu dhaafay rikoor oo bishii la soo dhaafay isagoo ku dhiisu uu sameeyay, kaasoo ahaa 30 dhibcood inuu hal kulan oo ay wajaheen kooxda Thunder uu ku sameeyay. Drandriyaha caanka ah ee ESPN ninka la yiraahdo Tim Legner waxa uu ku sifeeyay ciyaaryahankan mucjiso ku soo socota kubadda kolayga ee dalka Mareykanka iyo Canada.